بسم الله الرحمن الرحيم ما هاد waxaan taaganahay goobtii lagu dilay ilaahay ha u naxariisto abaamka weynaa ee jaamac kadiye maalintii labaad waan idaacadaha ka hadlaan sheegay inaanan u tacsiyeenin laakiin galabta oo tacsiyenay waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un walillahi ma akhadha wa lahu ma ada kullu shay'in indahu bi ajalin musamman waxaan leeyahay qabriga ha nuuriyo cadawga dilayna waa laga jaseeyay qaybna waa waxay noo xirxiran tahay qaybna dhulka hoostiisa loo diray qaybna waa noo dhaawacantay way noo yaalaan marka waxaan leeyahay wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha way waxay gudeen waa laga abaalmariyay ayagoo dadka hore badan laayay haddana waxaan aaminsanahay inay soo dadajisay cadawgan meesha laga saaro waa dhiigii iyo shahiidkii ay macnaha iyo waxa dulmiga ay kula kaceen awaanka weynaa ayagoo madfac been la'aan isaga soo ridahay oo qofna waa abayeelayn marka saad weeyeen kaga muuqata asaartii waa idin muuqata goobihi waa u jeedaan halka kaliya waa u jeedaan doolalkii waa meesha ku dhacay madfacu halkaas waxa weeye waa meeshaasna meelkiisu waa meeshii waa ku haleelay madfacu si good waxaan leeyahay maanta dad badan baa naga dhintay ilaahay ha u naxariisto oo aan mid iyo laba suxuf ugu horeeyay jaamac kadiyana ugu dambeeyay dadkii macnaha arintan macnaha wax weeye sida maartay bartilmaameedka loo dilay kaliya waxaan u baahanahay dadkaas inaan la hilmaamin loo duceeyo waxaan kale u baahanahay dadka cadawga naga soo horjeedo aan dadka hawshan dhibsana dhex madhay inaan waxa weeye xumaan loo muujin laana waxa la rabaa in maartay arintii laga baxo ayagana waxa laga rabaa inay arintan ka waantoobaan waayo waxa weeye ilaahay way inay horta say musabbixi u barteen wayna u barteen ilaahayna laana hada ilaahay wadadiisa ma hayaan wayna wadada ilaahay soo maraan wadada musabbixi kale